dagaalkan oo aan la ogeyn sababaha uu ku bilowday ayaa u dhaxeeyay ciidamo ka wada tirsan dawladda federaalka oo isugu jira nabad sugid iyo military kuwaas oo isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana dagaalkani uu soo gaaray ilaa barqanimadii maanta cali xasan waxa uu ka mid yahay dadka ku dhaqan deegaanka uu dagaalku ka dhacay waxaana uu VOA uga waramay qaabka uu dagaalku ku bilowday meeshan markii ay ahayd xalay sagaalkii ayaa waxaan maqalnay rasaas meel kasta ka dhacaysa dadka markaan weydiinana waxa la yiyaan guriga laga bixin waxa ciidamada waxay lama garanayo gurigaan ku jirna salaada subaxan tukanay salaada subax markaan tukanay ayaa rasaasta waxaan ragnay inay haanta ku socoto sidoo kale nabadoon xaashi xiiray oo kamid ah odayaasha ku sugan deegaanka haanta dheer ee jidka warshadaha ayaa si kooban uga warbixiyay sidii ay wax u dhaceen waxay wax u dhaceen annagu dad hadda ka carahan ahayno ilaahay barwaaqayo waa iska jiifnaa waagu markuu bariyay oo aan salaada tukado oo soo baxay xabadaan habeenkii waxba uma aanan qaadan markaan irinta ka soo baxay askariga gurigay hortayda taagnaa waa nimanka la yiraahdo nisa xabadaas waa socotay xaafadiyo dhan oo dadka shacabka joogay waa la hareeray xabada dhow waxay ahaayeen dadkii masaajidada u soo toosay markaasay darsatay oo isku qasantay su'aadiya bariyay dadkii magaalada aade markay maageen dariiq walba askariya isu taagay guri walbana askariya isu hortaagay wixii malagood gala waa dhinteen horaan kuugu sheego saddex nin anigu waan arkay meydkooda qaar kamid ah dadkii ku geeriyooday iyo kuwii ku dhaawacmay mashaqada ka dhacday jidka warshadaha ayaa la geeyay isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho sida uu ku waramayo agaasimaha isbitaalka Madiina Dr. Maxamed Yuusuf maanta waxay ahayd maalin kale oo dhaawacyadii la keenayo oo horta ilaahay anaga badbaadiyo markasta markaan isdhaxno hawsha waa idinka yaraanaysaa dhaawaca waa yaraana dhibka waa yaraana ayaa naxdintaan oo kale ka daba imaanayso oo dhaawac iyo isxabadeen iyo dhibaato ay dhacaysa ilaahay hanoo gargaaro ilaahay ha maysiyo maanta waxaana loo keenay 8 qof oo dhaawac ah iyo 2 oo dhimasho ah labadaas sidoo waxay ku dhinteen markii ayagoo sakaraad ah la keenay markii emergency roomka aan gelinay waa dhinteen 8 kale tood dhaawacyo culus u badnaayeen waa la daaweeyay qalliin lagu subiyay qaarkood chest waa la geliyay waa la kala habeeyay magaratay laboratoriyada iyo waxyaalo kale loo sameeyay waxa waaye waa jiifaan 8doodiba qaybaha jiifaan hadda xaaladooda stable waaye waan ka shaqeynaynaa dhinaca kale qaar kamid ah dadkii ku soo dhaawacmay dagaalkii dhexmaray ciidamada militariga iyo kuwa nabad sugidda oo aan kula kulmay isbitaalka Madiina ayaa ka warbixiyay sida ay wax u soo gaareen baasharaad kulan la yiraahdo walaalo meesha saaka markii waagu bariyay oo salaada subax la tukaayay nabad sugidda yimid qolo militari oo haanta joogtay ayaa ku diriray dad badan oo shacab oo waa ku dhaawacmay جمهور صار محمد. هتلاقي جسدي وحكوا جارين محاسة حتى كده. صار وحكوا ده كل ما قام حبله على الصلاة ساعة عيان عرقنا وجمهور كبرين الصلاة صوت كله تكاي أنا صلاة بتكذا كل ما عليك تمنى ما قام هي هبض أنا يقول عنه. حقيقة هذا الحين. خلاص. يقول درس كذا ساق هذا مطلع. أصلاً كذا. محل وشة يا مركز كده. هذا إذا كوشي هذا هبين لما إمادة ومقلنا إن الصلاة سهين هبلا فمقلنا وأنا مركز وجبرين هاللي إذا ما كنت أصلاً كذا. maahan markii ugu horeysay ee deegaanka haanta dheer ay ku dagaalamaan ciidamo ka wada tirsan dawladda federaalka waxaana hore u jirtay in dhowr jeer oo hore ay goobtaasi ku soo noqnoqdeen dagaalo noocan oo kala ah kuwaas oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho.